runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxdayda xidigaha geeska oon markii horeba si dahsoon ula shaqayn jiray horta weligii waxaan ku taami jirnay inaan marun xidigaha ka mid noqono saaxiibada xidigaha geeska waan ku faraxsanahay hortooda inaan taaganahay iyaguna ay taagan yihiin kooxdayda inaan ku soo biiray horta waa mahadsantiina fadhiista mar labaadka waxaan u hambaliyeynayaa kooxdan oo in badan jirtay oo dee ammaanta way igala dul dhaceene iyaga mas-uuliyadda weyn iyo xooggaba geliyey ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa horta xaaji aad baad u mahadsan tahay mar labaadka macalinka weyn iyo guddoomiyaha xidigaha geeska axmed weli ibraahim furle oo sidan isugu soo dubariday hadduu farihii dahabka ahaa maamul fiican ku darsaday waxaan leeyahay saaxiib aad baad mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay qamar suudani oo soomaali oo dhan taqaano cabdikariin cali shaah michael amiin dee gabdhaha aan meel ka soo wada muuqano oo ka wada jaasno anigu aad bay ii farxad gelinaysaa saaxiib mar labaad iyo mar saddexaadba waa aad ba u mahadsan tihiin maxamed axmed bakaal cabdiraxmaan cabdiyare aarshe khatra cabdisinmo halkaa iga muuqata asma loofo halkaa iga muuqato waanu in badan dee gurigeeda howl badan ku wadnay aad rooda kayf nimca degan oo hadal qiimo leh oo sharaf badan leh oo ka jeedisay halkan war saaxiib waa idinku faraxsanahay waxaan ballan qaadayaa laxamaan darka ka darno wada shaqayn fiican dhiig cusub waana ku faraxsanoo dukaamadu way iscamiraano dee qori keligii ma berbereen markay igaaga ciyaarayaan heestaabay deeqaysaa waad mahadsantihiin horta hadal waa intaa xaajo uu yidhi dhammaan fanaaniinteyda oo dhan aad baan u salaamaya guddoomiye ugu horreeya axmed weli ibraahim maxamuud axmed xaaji biike dhammaantood waxa weeye mar haddaanu nahay qoladayada cusub horta weligii waxaanu ku taami jirnay inaanu marun xidigaha ka mid noqono alxamdulilah ilaah baa nagu simay inaanu xidigaha ka mid noqono fan baynu ka hadlaynaa waxa weeye wax kale aynu xumaan kale aynu wadno iyo cid kale aynu xumaan ku wadno ma jirto ciddii fan doonaysa wayna soo dhaweynaa saa sheegtayba xaajow ciddii xumaan doonaysana waxa weeye way naga beri marka hadalka intaasaan soo koobaya aad baan ugu faraxsanahay inaan idinka mid noqdo aad baa u salaamin runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxdayda xidigaha geeska oon markii horeba si dahsoon ula shaqayn jiray imakana si muuqataan u wada shaqayn doonaa annagoo dhammaantayda iska wada duuba waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa oo sidoo kale leeyahay waan ku faraxsanahay inaan kusoo wada dhawaano kooxda xubnihii ila socday oon leeyahay dee kooxdu waa kooxdeennii maanta kadibna waynu wada shaqaynaynaa dhammaanteen sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inuu kooxda kusoo noqdo maxamed saciid biike oo aan jeclaan lahaa inaanu wada shaqayno oo ka maqnayn mudaafan dee hadalku insha allah wixii hadda ka dambeeya qoladeeda social media ku jirta aan kooxda ku jira markii hore waan iska tuurtuuran jirnay mar haddii la yidhi imika shaqun baa la qabanayaa shaqa inoo ballana haddii ilaha yidhaahdo